Assalaamu calaykum kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin calool xumo leh oo uu wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ka qoray qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay X-Control Afgoye ee magaalada Muqdisho balse intaan u gudagelin faahfaahinta sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo baqato channelkeena fadlan subscribe sar adigoo furanay gambaleelka si aad u heshid wararkeena ugu dambeeyay inkastoo Soomaaliya ay ka soo kabanayso dagaalo sukeeye iyo fowdo muddo ku dhow 30 sano haddana dawladda Soomaaliya waxay wali ku guuleysan laadahay sugidda amniga caasimadda iyo ka adkaanta al-shabaab wargeyska ayaa warbixintiisa ku bilaabay in qaraxii al-shabaab mas'uuliyidiisa sheegatay ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku dhinteen qaar badan oo kamid ah rajadii iyo iftiinkii u soo baxaysay ummadda Soomaaliyeed wargeyska New York Times ayaa xusay in qaraxaas dadka ku dhintay ay u badnaayeen arday wax ka dhigata jaamacadaha Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Banaadir ardaydaas oo badankood baranaysay maadada caafimaadka waxay ahaayeen rajadii iyo iftiinkii ummadda Soomaaliyeed u soo kacaysay waxay ahaayeen ardaydii jaamacadaha waxay wax ku baranayeen xaalad aad u adag iyo wadan ay ku yar yihiin dhaqaatiirta caafimaadka ayaa lagu yiri qoraalka wargeyska New York Times Amran Qasim waxay ahayd 22 jir hormuud u ah fasalkeeda waxay ahayd ardayd barata maadada caafimaadka waxay kamid ahayd dadkii ku dhintay qaraxii X-Control Muqdisho sidoo kale Abshir Maxamed Abuukar waxa uu dhawaan dhameeyay dugsiga sare waxa uu isku diyaarinayay inuu bilaabo waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda balse nasiib xumo waxa uu kamid noqday dadkii ku dhintay qaraxaas hamigii iyo hiigsigii ardaydaas waxa uu ku soo idlaaday in iyagoo dadkooda iyo dalkooda aan waxba u qaban ay god u hoydaan qaar dhaawacyo culus ka soo gaaray qaraxii 28 December ka dhacay X-Control qaraxaas oo mas'uuliyidiisa ay sheegteen kooxda al-shabaab waxaana ku dhintay ilaa 81 ruux dad lagu qiyaasay halka 150 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen dhanka kale wargeyska ayaa qoray in inkastoo Mareykanka uu sanadkii la soo dhaafay iyo kan cusubba uu kor u qaaday weerarada iyo duqeymaha uu la beegsanayo goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin Soomaaliya haddana kooxda xiriir kale leh al-Qaacida ay kor u qaaday qaraxyada iyo ismiidaaminta ay ka fuliso gudaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu xusay in al-shabaab ay howlgaladeeda gobolka balaarisay isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii ugu dambeeyay ee maalmo ka hor ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ku leeyihiin deegaanka Mandabey ee ku yaal dhanka xuduudka Kenya iyo Soomaaliya weerarkaas oo lagu dilay ilaa 3 kamid ah askarta Mareykanka ku dhawaad 25 sano oo uu dalka Soomaaliya ku soo jiray dagaalo sukeeye iyo kuwa diin ku saleysan haddana waxay u muuqataa in uu si tartiib ah uga soo kabanayo iyadoo magaalada Muqdisho laga dareemayo horumar ganacsi sida in la furay maqaayado ay isugu yimaadaan dhalinyarada iyo hoteelo caalami ah sidoo kale waxaa sare u kacay dhalinyarada ku shaqeysata tiknoolajiyadda inkastoo ay horumaradaas ka jiraan caasimadda haddana al-shabaab ayaa laba laabtay weerarada gaadmada isqarxinta iyo qaarijinta shakhsiyaadka dawladda ku jira iyo kuwa u shaqeeya hay'adaha caalamiga ah weerarkii ugu dambeeyay waxaa ku geeriyooday injineero Turki ah oo dhisayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgoye iyo sidoo kale arday iyo dad shacab ah sidoo kale sanadkii la soo dhaafay al-shabaab waxay weerar la soo qorsheeyay aadna looga soo shaqeeyay oo simidaamin ah ku dileen gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Yarisow weerarkii 28 December ka dhacay X-Control Afgoye waxaa ku dhintay 16 kamid ah ardayda jaamacadda Banaadir halka 18 kalena uu dhaawac ka soo gaaray kuwaasoo u badnaa gabdho baranayay maadada caafimaadka Sahra Mire Maxamed oo kamid ah macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Banaadir ayaa wargeyska New York Times u sheegtay in qaraxas ay ku waayeen arday badan una badnaa kuwii ugu firfircoonaa waxaan ku weynay kuweeni ugu fiicnaa uguna dadaalka badnaa ayay tiri Sahra Mire Maxamed sidoo kale Sahra waxay sheegtay in markii ay tagtay mid kamid ah isbitaalada la dhigay meedadka iyo dhaawacyada ardayda ay soo aragtay mid kamid ah ardaydeedii oo ahayd gabar aad u dadaal badan kaalinta kuwaadna gali jirtay badanaa qoyska Abshir Maxamed Abuukar waxay ahaayeen kuwo ku rajo weyn in marka uu soo dhameysto waxbarashadiisa jaamacadda uu kor u qaado noloshooda isla markaasna uu ka dabaro biilka iyo kirada guriga balse rajadaas waxay dhimatay 28 December markii uu kamid noqday dadkii ku dhintay dhacdadaas waxa uu ahaa rajada kaliya ee qoyskan laakiin Ilaahay markii horena siiyay ayaa mar kale naga oobsaday sidaas waxa yiri aabaha Abshir Maxamed Abuukar hadda waxa u haray aabaha iyo qoyska Abshir waa miisk uu dul saaran yahay laptopkii wax ku baran jiray iyo buugaagtii ay sawiradiisa waan ogahay in maalin aan dhiman doono balse ma doonaysid inaad rumaystid
in wiilkaaga ama rajada kaliya aad lahayd uu kaga dhinto qarax, ayuu hadalkiisa sii daba dhigay aabaha Abshir oo aad u murugaysan. hal isbuuc kaliya ayaa ka harsaneed bilaabashada imtixaanada nisfu caamka jaamacadaha, ardaydana waxay ahaayeen kuwo u degdegayay inay gaaraan kambaska jaamacadda. ardayda qaraxa ku waxyeelowday ayaa saareed 2 gaari oo hoomey ah, kuwaasoo marka qaraxu dhacayay ku sugnaa X-Control Afgooy oo ah bar lagu baaro gawaarida soo gasha iyo kuwa ka baxa magaalada Muqdisho. qaraxa oo dhacay subaxnimo aroor ah waqtiga Muqdisho ayaa waxaa goobta loogu tagay waxay ahaayeen ama u badnaayeen meydadka hilboga go'ay, buugaagta iyo kabihii ay wateen ardayda halkaas wax ku noqotay. waxaana weerarkaas lagu tilmaamay midkii labaad ee ugu khasaaraha badnaa ee soo maray Muqdisho iyo Soomaaliya, wuxuuna ku xigay weerarkii Soobe kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 500 oo ruux.